السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبنى سلام يا كودهان كرهان يا رضي رهبلو كديين ميل والباتشوتان ساعة البيدين تاي إن حسيتني من هرس ودرنا وحن صور دميني عشرة مهمة سو هذا أو كهلا قاف كسوق ودسيني وحن صوبري دور كنوع استراكشر كقاف كلو قيبيو وحن كسو حجيني سوق مكو راجن كجرو نقشadaha uu abuuro si loo garto raagin marka baxo dhinacu aadayo oo intaas waxaan oran karnaa dadka kubadda daawada 7-11 weerar fiican adigana dad intiina tijaabisay ay soo dirtay ama ardayda barat ka garaysay waxaan maleynayaa wax weyn baa uga baxay hada suuqu dhinacu socdo iyo suuqu dhinacu aadi rabo iyo sababtu uu aadi rabo maanta waxaan soo qaadanaa marka Fibonacci waxaan oran karnaa waa dhexdii waa lambar 10 meesha waa shayga isku xidhaya difaaca hoose iyo xagga sare sad dareemayo u maleynayo inaad go'aan ku qaadan kartaan u maleynayo odhan sideedaba khaladba inta yar go'aan kuma qaadan kartaan suuq u gashid wax fara badan baad u baahantay kooxda waxay ka dhisan tahay 7-11 bis maanta dhexdeena u dhisana waxaan naga maqan wali difaaciyadii baa naga maqan wartiiri naga maqan 9 baa naga maqan istiraatiijiyadu waa meesha u dambaysa waa 9 oo ninka gool ku dhalinay saas darteed maanta inta badan waxaan raacdaa inta istiraatiijiyad raadin waxaad raadisaan horta barta suuqa istiraatiijiyad raadin waa istiraatiijiyadu maxay ku kalifisaa caajis ma barinaysa suuqa weligaa waxaad u joogtaa laba indicators dhaafa iyo laba indicators xaggan aada marka hore aan suuqa baranno waxa dhaca in baranno luqad lagu wada hadlayn baranna kadib aynu maxaan gudbi doonaa insha Allah istiraatiijiyada hore aan socon doonaa Fibonacci wax ka baranaa Fibonacci waa tusiye waxa la yiraahdaa Soomaali ahaan waa indicators oo dhan waxay noqonayaan waa tusiye waa shay isagu structure kamid ah maaha waa shay aan soo qaadanano si structure wax kamid ah aan ugu ogaano marka waa tusiyo noqonaya waxa tusiyahan wuxuu yahay qaybuhu qaybsamo shuruudaha laga rabo inaynu buuxino markaynu isticmaalano baan dul istaagi doonaa insha Allah ka hor intaan halka istaagin sidii caadada ahayd ardayda ila soo xiriiray sawirada ay soo dirtaa waxyaalaha ugu badan ku adkaada baynu hal mar soo gudbinaa si laga yaabo dad ila soo xiriiri waayay inay ama mar xilli dambe oo aan casharadan dhaafay in arday kale daawato meelahaas ciladooda noqoto waayahay waxa kamid ah labadan qodob baa ugu muhiimsan hadda waxaan doonayaa inaan ka hadlo iyo laba qodob kale laftigoodu soo noqon idinku kala saari doono labada continuation-kii iyo reversal-kii waxa weeyaan waxa aad dareemaya in ardaydu heli weyday in baarsiga ciladoobay aan ku yiri mar walba in baarsiga ciladoobay horizontal madaxiisana saar hoosina saar arday badan baa weyday intan yar qeexidii Soomaaliga ku sameeyay si hadii aad codkii fahmi weydaan ama hadii si wacan qeexidii u fahmi weydaan aad qoraalka akhrisataan isla markaana aad u fahantaan in baarsiga ciladoobay waa in baarsiga ugu dambeeyay waan ku yiri ugu dambeeyay ee yeelan waayay bullback bilaaba in baarsi caafimaad qaba oo ka dambeeya tusaale ahaan barwal badan tusaale wuxuu noo soo dhaweynaya faa'iidada tusaale ahaan in baarsi waxa soo abtare masayna ugu socday سان وسعون إن برسيق علودي هذا هو محي إن برسيق وإن برسيق مكو ساس دعدو رانج ما دعدي إن برسيق علودي مركو حويان واكن صوت محو علودي وحو يلين واي بول باج عبورة إن برسي في عن ما أنت بول باج حاجة مكو تشوجي أركز مكو تشوج سمي إن برسي مو أبوري كوركشن بو أبوري ما دام كان كوركشن بو أبوري كعلودي إن برسيق ما نقعنا وايو محو سمين واي إن برسي دمبه حين الوايهين وكسب لما بول باج كهرية ماشي كسو نقطة وحنا كل ما هذا ماشي وسقو ويحي في قوس ريا ما قصية بول باك هوري واكن وش ده بول باك هوري واكن ماشي كسب بالله مكبلا ماشي كسب بالله أو ماشي كل ما هذا بول باقي مكبلا ما وحنا أفكي سوس ريانا وماشي سقو في قوس ريا ويا سجى هاير كسرية بلا فانتين واي وأنت قرية قاعدة إلى فهم حين سمعنا مكساس وكذا هذا أنت لا فهمت وحين سمعنا أنا مركا madaxiisa waxaan dhiganaa horizontal line-ka hoostiisana horizontal line-ka maxaan u dhigay sababtoo ah kani isaga fiiq u sareeya ah ma jeedaan fiiq ka sareeya halkan ma yaalo fiiq ka sareeya meesha halkaas ma yaal isaga u sareeya fiiq ahaan waxaan ka soo bilaabnay correction-ka ka dambeeyay ka horeeyay kan kama horeeyin meesha ka soo bilaabmay horizontal-ka xaga dhigaysa marka halkaas aad dhigaysa fiiq hoostiisa midna korkiisa dhigaysa laba shardi waa inaan higher ka sareeyo hadduu ka sareeyo waa isaga ka u sareeya weeyaan waa inaana وإنه سنة كسب بالخانة كوركشن كوري مش كل ما هذا وسوق كسب بالله ما
dad baa halkaa dhiganaya halka kama bilaabmo halkaas waa dhexdiisa waa halkaa dhexdiisa mar badan ku socon doonaa isticmaashaan halkaas ka bilaabmaa waayo qodobkaas waa qodobka ugu badan ee ardaydu isoo weydiinaysay in balsiga cilladooba ay fahmi waayeen si ay ugu calaamsadaan waxay raadinayeen waaye falqayntaada waxay ku xiran tahay nooca ganacsaha tahay su-aalaha laysoo weydiiya waxaa kamid ah trim framekee ka bilaabaa aduu haddaa scalpin tahay basic waan soo duubi doonaa inta basic dhigan waa fahmi doontaa haddaa scalpin tahay waxa lagu ogolyahay meelo aad baa jira scalpinka lama yiraahdo qofka 15 minuteska iyo isticmaala waxaa la yidhahdaa scalpin qofka bbc raadiya in badan baan ku celceliyaa scalpin ma noqon kartid haddaan wax weyn nin aan gaari arki kari maayo baaskiil indhaha haddii gaari arki waayeen baaskiil arki maayaan qof aan awood u lahayn inuu wax waaweyn arko bbc ma heli karo waan ku celceliyaa si walba mar baynu cashar baynu basican soo bilaabin doonaa insha allah aan kaga hadli doono waxyaalahaas oo dhan haddii ilaahay ii fududeeyo insha allah waayahay haddaad tahay day trader 4 hourki iyo 1 hourki 1 hourka laga galaa 4 hour dayga la trade garaya haddaa swing trader tahay daygaad joogtaa moogtahay position bishii iyo waxaasaad analyze garanaysaa marka analyzekaaga wax ku xiran yahay nooca traderkaa tahay before intaan analyzer noqon waxaa ka horeysa inaad isbaratid adigu yaa tahay trader nooceeyaa tahay marka mar walba adiga waxuu sawirkaagu noqon doonaa correctioniska ama buulbaagyada in baalsigooda uu caafimaadka qabo way la socotaa majaca waay halkana waxaan rabaa inaan cashirkeenii hore mar aan sii dul maro hal mar si fahankiina usoo dhaweeyo waayo waxaan soo duubayaa inaad si fiican u fahantaan waxaan rabaa qaabkee u kala saarka chat patterns waxaan rabaa ugu dambeyntii inaynu si fudud ku kala saaro sideeni caadada ahayd ama istaraatiijiyada aan u isticmaalo weeyaan in balsigaagii ciladoobay waxaad ku samaynaysaa korkiisana waxaad dhigaysaa impulse horizontal line hoostiisa horizontal line always waxaad ku xisaabtantaan horizontal line dhigaysaa waa inay support assistant meelo kale ka noqdaan tusaale ahaan markuu saasoo kale aad dhigtay waa in meelahan kale laga celiyaa hadda baraadkaa samaysa ama meelaha laga celiyaa meelo kale laga celina jirtaa marka hadday tahay qiimo cusubna meel cusub haddaa samaynaysiina waa in ama kan laga soo celiyaa meel kan laga celiyaa qiimaha kan laga celiyaa waa inay jiraan si waxaan u noqdo horizontal adag waaye sidee ku kala saaraya marka horta marka koowaad qodobka koowaad waxa weeye in balsiga laba dhinac ka samayso ka labaad dhexdiisa calaamadii hadda Fibonacci sida loo isticmaalo waan baran doonaa ama 618 to 50 inta u dhaxaysa inta labadaas ku calaamad 618 to 50 isku calaamad waa Fibonacci numbers waan baran doonaa casharkeena maanta waxa kala ka hadli maayo labadaas isku calaamad qiimaha eeg marka qiimaha haduu soo tagay haduu calaamadaada soo dhaafo uu horizontal kala yimaado reversal buu qiimaha sameeynaya uu kala jeesanaya ku xisaabtan ama halkan ha ka noqdo oo sax u noqdo oo shan header ha noqdo dhageyso ama shan header ha noqdo ama ha noqdo oo gidaarka kale inta ku noqdo ha soo noqdo double tab iyo triple tab iyo wuxuu doona ha noqdo ku doona ha sameeyay hadii taasi ku dhacdo haduuba soo dhaafo ku xisaabtan waxay dhici karaa ugu sokeeya waa reversal waxa ugu sokeeya dhici karaa waa reversal haduu waayahay soo dhaafi waayo ka war qodobka labaadna waxa weeyaan hadii uu qiimuhu soo dhaafi waayo tan uu halkan ku noqdo meelaha ku noqdo suu doono ha u noqdee ama triangle ha noqdo ama flag pattern ha noqdo marba haduu ku soo dhaafi waayo dhexda halka haduu ku soo dhaafi waayo waa continuation qiimahani waa continuation oo impulse dhexdiisa haduu soo dhaafi waayo continuation pattern ba waxa ugu hooseeya ee ku dhici kara waa continuation pattern waxa u baahan tahay in horay loo sii socdo qiimahani uu sii sameeyo wala socda ma jecel waayo haduu natural yahay waxa macquul ah si u sameeysa deegaysa natural una soo dhaafi kara qiimaha oo meelaha uu ka noqon kara sidii aan ku soo baranay meelaha uu ka noqon kara aagan sidoo kale wuxuu sameyn karaa nature kuwan labada dhinac way dhacaan wayna soo dhaafi karaan oo meelaha ku noqon karaan halka sarena ku joogi karaan natural waayo adiga mar walba waxa ku soo dhaafo attention ka gali hadii la soo dhaafaba markii uu formka dhacay ku xiga impulse haduu soo dhaafay correction wuxuu sameeyay waayo waxay u badan tahay haduu soo dhaafo dhexda inuu noqdo reverse haduu xagga sare ku joogo dhexda soo dhaafay waxa u badan tahay continuation waayo hore soconana Fibonacci inaan galana waayo
Fibonacci baan gelaynaa. Fibonacci wuxuu yahay baan ku bilaabi doonaa insha Allah qeexidan si aan Fibonacci loo yaqaano. waaye horta Fibonacci number 1 waa tusiye aad ugu isticmaali doono haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhow ama waxyaalaha ku cusub elite wave-ka hormoonkiisa marka baran doono waa mid aan aad u isticmaali doono saa darteed si fiican u barta oo marka labaad niman yahow waa xisaab ama khiyaaray waa xisaab waxan waa raashi xisaabeed weeyaan ninka la yiraahdo Leonardo Fibonacci baana soo saaray waa xisaab u dhisan qaab sheegaya qaabkan bay u dhisantay Niger-ka bayna sheegtaa hay 0 ay 1 0 1 1 marka laba u dambeeya isu geenaya 0 1 loo geeyo 1 baa ka dhashay hal loo geeyo maxaa ka dhalanaya 2 hal laba loo geeyo 3 laba saddex loo geeyo 5 saddex shan loo geeyana 8 halka saas u soconaya ilaa meesha u dambaysa waa xisaab qaab noocaas ah u dhisan bahashani raashida ninkaasana soo saaray waa nin Talyaaniga kaliya inaad fahantaan waxaas u yihiin baan ugu talagalay idinku Google ku qora Google Chrome ka raadiya YouTube ku qora Fibonacci asal waxay tahay idinku soo ogaada inagu waxaan u isticmaalnaa iyo qaabkan u isticmaalahay baan idin tusaya si aan hore u socono waxaa loo isticmaalaa in lagu ogaado support system oo lagu helaa meelaha support system ugu muhiimsan oo lagu helaa iyadoo swing high swing low wax loo isticmaali doono sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in trade lagu galo oo lagu ogaado meelaha la dhiganayo trade la geliyo stop loss ka xaga dhigaysaa take profit ka xaga dhigaysaa sana waa loo isticmaalaa tusaale ahaan dee si waxaa lagu ogaanaya macnaha imbalsiga meesha uu dambeeyey ku dhici doono iyo correction meesha u dhici doono si aad u geshid qaabkaa weeyaan marka lagu leeyahay sidaa waayo sidoo kale waxaa loogu aqoonsadaa qaar ka mid ah qaabka suuqa ku dhisan yahay hormonic patterns-ka suuqa ku dhisan oo u tegi doonaa geed Fibonacci numbers lagu soo saaraa elite wave-ka Fibonacci numbers lagu soo saaraa qaabka u wada dhisan yihiin geedi mid lagu tegi doonaa waayo bahashan laba nooc hadda waxay hore aan isku soo sheegay noocyo fara badan oo qaybsantaa bahashani laakiin laba nooc baan ka hadli doonaa insha Allah Fibonacci system T iyo Fibonacci extension labadaas ka hadli doonaa system T waxa lagu ogaadaa halka correction ka soo noqonayo waxaan ka wadaa system T waa wax soo noqonaya sidaa darteed imbalse uu yahay waxa lagu ogaadaa correction kani meesha ka soo noqonayo meesha uu ka soo noqonayo correction extension kan waxa lagu ogaadaa markuu saa yahay imbalsiga meesha uu gaadhayo imbalsiga meesha uu gaadhayo taas oo kala duwan midna waxa lagu ogaadaa imbalsiga meesha uu gaadhayo imbalsiga lagu helaa meesha uu gaadhayo midna waxa lagu ogaadaa correction meesha ku soo noqonayo taas oo kala duwan labadaas aynu baranaa Fibonacci badan bitooga waxa ku soo xigtay caan salaam alaykum bitooga si channel-ka loo isticmaalaa hadda anu channel caadi aan isticmaalo saa darteed waxaan isticmaalo iyo waxaan badiyo waan idin barayaa horan socona shuruudaha Fibonacci system laga rabo laba inuu qaybno waqtiga soo kala sheegnay marka sidee loo sawiraya marka koowaad horta mar walba adjustment raadinaysid mar walba aad correction raadinaysid waxa sawiraysaa tusaale ahaan leefna oo tagi doona mar walba aad raadinaysid correction waxa raadinaya markaan eeg correction hadda raadinayo waxa sawiraysaa imbalsiga waa sawiraysaa way waxaana ka keenaysaa sawirkaaga ka soo bilaabanaysaa markuu up trend yahay hadduu up trend yahay sawirka waxaad ka soo bilaabaysaa fiiqa hoose waxaana geynaysaa fiiqa sare oo markuu up trend yahay hadduu down trend yahay ka war oo saa yahay mar walba isna waxa aad ka raadinayo maadaama retracement-ga aan raadinayo maxaan sawirayaa markana maxaan raadinayaa retracement-ga markaan retracement-ga raadinayo waxaan imbalsiga sawiraysaa imbalsiga may waa kan way hadduu down trend yahay waxaan ka soo bilaabayaa down trend kana kor to hoos waxaan ka soo bilaabayaa tii hore waa bilcagsigiisii halka u sareysan ka soo bilaabaya waxaan ku qabanayaa halka u hooseysa inta way la fahanteen bal way iyadoo leef aan dul tagaynaa Fibonacci waatan marka la joogo trending way ku tusi doonaa marka la joogo MT4-ka waata Fibonacci line-kaas ku jirta Fibonacci retracement ku qoran Fibonacci retracement ku qoran taas oo ku dhufanaysa way horta aan sawirano waxaan dadina waa retracement moogtahay marka retracement-ka la raadinayo maxaan ku wari imbalse anu tan uma isticmaalaa Fibonacci kan uma isticmaalaa iyadan labadaba ku raadiyaa wuxuu leeyahay trend view-gu extension gaar uu leeyahay halkan kuma arag extension gaara laakiin tanaan labadaba u isticmaalnaa marba meel baynu ku qabananaa markaynu ku qabanano waxaan ku haddaynu doonano retracement maxaan ku qabananaa retracement waxay pullback meesha ka soo noqon haddii ogaanano maxaan sawiranaa imbalsiga way imbalsiyo waa kan
ii soo qaad bahashi waxaan ku uri markuu abtaren yahay retracementigaasi uu abtaren doonayo aan doonayo in ogaado kani meesha ka noqonayo maadaama kan abtaren yahay xagan ku qabanaya waan ku uri waxaan ku uri hoos baad kasoo bilaabaysaa ilaa iyo kor baa wadaysaa waxaan kaloo kugu yidhi saddex mid baa raadsanaysaa kuwa kale iska daa saddexda mid waa umeeye waa lambarada saddexdaa lambar 38 50 61 waxaan kasoo bilaabay hoos waxaan ku qabtay kor waan ku celiyay mar kale si aad ugu ceshataan ila soco waa Fibonacci baan soo qaatay xagga hoosaan ku qabanaya waxaan raadinayaa bullback ilaa waxaan wadayaa kor maxaa ii muhiim ah in aan ogaado saddexdaa lambar ku dhaco waan ku sugayaa saddexda lambar maxay kala yihiin tusaale yar oo fudud baan ka siinaya waxay kala yihiin saddexda lambar sidoodaba tusaale ahaan haddii lagu yidhaahdo maanta alaab baanu jebinay tusaale ahaan maanta haddaan ku yidhaahdo alaab aan hayay baan jebinayaa iyo discount baan samaynayaa maanta oo sabtiya waxaan siinayaa boqolkiiba waxaan samaynayaa 30 boqolkiiba 38 boqolkiiba 20 kasoo qaaday saddex beriyo axadana boqolkiiba 38 saa dambe oo isniinana boqolkiiba 50 talaadadana boqolkiiba 60 arbacadana boqolkiiba 78 caqligaaga fakaro keeba dadku imaanayaan dadku dhan boqolkiiba 30 dooni maayado wax weyn arka dad badan baa boqolkiiba 38 horta imaanaya waxaa uga sii badnaanaya dadka yimaada maalinta boqolkiiba 50 waxaa ku sii xigaya dadku badankooda jecel yihiin ay aad u wada jecel yihiin in konton xagga loo dhaafiyo boqolkiiba 60 loo daayo 40 qori boqolkiiba bixiyaan oo boqolkiiba 61 bay imaanayaan dadka boqolkiiba 78 laakiin boqolkiiba iyo inta ka sooseeya qofku muxuu ka baqayaa dee in alaabtiiba ka dhamaato marka dadkaas imaan maayaan saddexda hore lagu kala tegay alaabta ka dhamaanaysa laga wada baqaya moogtahay saa darteed halkan waxaa saa ugu xisaabtamaya qiimaha markuu soo socdo buyers hadda sellers baroma ku xisaabtamaya buyers kooxdan waxay ku sugaysaa kooxi 38 markuu saa usoo gaaro ay calaamad arkaan hore rabaan ka galaan kooxna 50ga kooxna 61ka dadku waxay soo leeyihiin 61 already lagu kala baxay hoos loo subax Soomaa marka 61ku waa golden numberka ka ugu qaalisan waa 61ka ka aadka loo wada sugaa waa 61ka ana waxa doonaysaa inaad dadku fikirtid inkastoo Fibonacci kaligeed aan isticmaalin casharka xagga sidoo tagi doona way aan ka gudbo marka waxaan umaleynaya waa la fahmay sida kan loo soo warayo iyo meelaha la eeganayo waxaa laga rabaa extensionka waxaan ku isaga mar walba correctionka sawir xagaa sawiraysa mar walba correctionka kii hore maxaa sawirayay saan u ogaa retracementiga meesha ay ka soo noqonayso maxaan sawirayay kana maxaan sawirayaa correctioniska ma garatay correctionkan ku qabanaya correctionkan waan ku qabanaya hadduu abtaran yahay waxaad kasoo bilaabaysaa fiiqa sare waxaadna keenaysaa fiiqa hoose hadduu down taran yahayna waxaad kasoo bilaabaysaa fiiqa hoose waxaadna keenaysaa fiiqa sare mar walba waxaan sawirayaa correctionka waayo waxaan raadinayaa extension waa maxay waa meeshii faa'iido tag profit ka qaadan lahayd in baa asigu meeshuu gaadhayo waayo tusaale leh fiicana hay tusaale mid aan sawiran dhoo tirana kanana daata marka halkan joogno maxaan ku wuri extensionka isla yadii baan isticmaalnaa Fibonacci extension isla yadii baan isticmaalnaa waayo extensionku waa maxay waa meesha bahashani gaadhiso marka maxaan sawiranaa bullback marka hore maxay sawiranay imbalsiga waxaan soo qaadanaya Fibonacci keygii marka dhow taran yahay baan ka bilaabay hoos baad ka soo qaadaysaa kor baad geenaysaa hoos baad ka soo qaadaysaa kor baad geenaysaa ma ujeedaa waxaan ka soo qaaday hoos after kor wax kale ma sameyn aan kugu soo celiyo waxaa laga yaabaa inay arag iyadoo tan loo isticmaalayo hashi waxaan rabaa adoo MT4 maadaama extension lahayn taadan extension isticmaashid train view extension wuu leeyahay ifanta aan loo dhinac ma tayda baan isticmaalaa Fibonacci retracement ku qoran tahay retracementiga baan laftigeeda extension u isticmaalaa waa extensionku meesha imbalse ku aadayo bay ku sheegaysaa waxaan ku wari bullback ku sawir hadduu dhow taran yahay iyo haddii kalaba horta haddaaba raadinaysa extension haddaa raadinaysa meesha qiimuhu gaadhayaan bullback ka sawir marka tan isticmaalaysa bahashan retracementiga marka uu isticmaalaysa weeyaan bullback ka sawiraysaa xagad ka soo bilaabaysaa hoos markuu dhow taran yahay kor baad geynaysaa markuu dhow taran yahay waayahay meelaha ugu muhiimsan asleeda uu gaadhaya ilaa 5 sawir kuwa ku weey boqolka horta boqolku waa
oo meesha xitaa haddii uu ciladoobo uu ka noqonayo TB1 ka laga dhigtaa take profit 1 ka 100 ka laga dhigtaa meesha TB2 ga maxaa laga dhigtaa TB2 ga maxaa laga dhigtaa 38 138.2 TB3 ga meesha ay yiraahdaan uu gaarayaa waa halkee 1618 waa kan 161.8 TB4 haddaa usii bahatid iyadoo adoo sii qaybinaya kasoo horeysiinaya waa 26 waa kan waa 220 waa 26 261.8 halkaasaa TB1 ku ah badanaa stop loss-kana ka uu kasoo bilaabmay kuu kasoo noqday had kasoo qaad inuu 61 kasoo noqday kasoo qaad ka dambeeya laga sii daba dhigaa hal Fibonacci lambar baa loo soo dhexeysiiyaa laakiin waan baran doonaa stop loss-ka sideedaba waxaa fiican pullback ugu dambeeyna dhigatid waxaan aad iyo aad u jeclahay inay la fahanteen bal waayo trade view-gan tusaale idinka siinaya aan tusaale idin soo qaado after kaasoo bilaabaya waayo waxaan doonayaa hadda inaan helo inaan ogaado pullback meesha ku noqonayo waa tan Fibonacci statement-gii xaggan waa lagala soo baxaa okaadi halkan anigu iska diyaarsan tahay waxaad ku dhufanaysaa khaanada saddexaad khaanadahan Fibonacci retracement inta ku qorantay soo qaado extension ku waa tan extension aan ma isticmaalo retracement-gaasan labadaba ku fahansiinaya hadda u baahday inoo isticmaali kartaa dad iyada isticmaashay waayo waxaan isticmaali waayey trend view kuma arag extension saa darteed waan ku khasbanaaday meel walba in retracement ku isticmaalo sida ku dhufso ma ku dhufatay waxaan kugu yiri markaad correction raadinaysid imbalsigaaga waxaad isticmaalaysaa imbalsiga hadduu aftaran yahay hoos kasoo qabo ilaa iyo kor baa wadaysaa waxaan ujeedaa 613 kuwa uu ka noqonayay hadduu dhow taran yahayna waa kan maxaan kasoo qabanayaa hadduu dhow taran yahay kor maxaan geynayaa hoos meesha ugu hooseysa ilaa halka baan geynayaa saasaad hortaasaad u aragtid maartaa bahasha ilaa halka ugu hooseysa baan geynayaa imbalsiga waan cabiray kuwa maarta 50yadii 38 56 kuwa waaye markaan extension doonay maxaan kugu yiri haddaan extension doonay maxaan kugu yiri haddaan extension doonaysa maxaa samaynaysaa isla iyadii waan soo qaadanaya isla iyadii baan wax ka raadinayaa extension maxaan ku qabanayaa pullback haddaan aftaran yahay maxaan kugu yiri pullback kor kasoo bilow hoos keen kor kasoo bilow maxaan kugu yiri kor kasoo bilow hoos keen marka maxaa samaynaysaa waxaad ku dhufanaysaa eeg la soco xisaabteeda tan ku dhufo sitting-ka ku dhufo refresh ka qaad waxaan qaaday refresh-ta okay de kuwa lambarda 161 kuwa doonayso dhani kuwa kor kugu soo baxay ujeedaa waaye haddaan doonayo down trend maxaan kugu yiri pullback sawiraysaa waxay ka soo qaadaysaa pullback-na hoos ilaa kor baad keenaysaa warkaa ku soo baxaysna take profit meelaha ka qaadan lahayd ujeedaa gidoo ku soo baxeen hadduu sida kale ka noqdana wayna bedelan kartaa marba laga yaabaa baalkaagu sida kale ka yahay haddii reverse dalban tahay kor jiro oo si qaadaysaa maxaad ka dhigaysaa bidix ku dhufanaysaa sitting-ka tag refresh ka qaad oo refresh waxay u taagan tahay retracement-ga ii sheeg u taagan tahay refresh ka qaadaysaa okay waa dhaansa wakaa ku wada sheegay ujeedaa 160 wakaa 100 ugu soo horeeyay wakaa aad baa lay fahmaan jeclahay aad bay u mahadsantihiin casharadeenna halkaas kasii wadan doonaa weli basic-gan waxaa jirta arday badan oo iga soo codsanaya basic-ga ma bilaabin insha allah si u dhaqsameysna waa bilaabi doonaa casharo kooban masna ka bilaabi doonaa soo koobano hadda waxaad haysataan retracement Fibonacci-gii waan si fiican idin fahansiiyey ku cishta fahma practical badan ku sameeya haddii ilaahay waxaan u gudbi doonaa ililifkii hadda waxaad barateen qoriya qaabka loo ogaado qiimahan correction-ka jooga goor imbalsiga inuu aadayo hadda waxaad barateen correction-ka sida aad u fahmaysid goortu imbalsiga aadayo Fibonacci ku barateen horena maxaa soo barateen waxaan correction-kan goortu dhamaanaya hadduu yahay pattern goorta laga baxayo dhinaca hadduu ranking galo dhinaca u baxayna ogaatid hadduu trend mark ka yahayna dhinaca aadayna baratid
marka hadda waxaanu ku wareegaynay kaliya impulse iyo correction impulse labada qoriya insha Allah casharkeena iloos waxaan ku baran doonaa waxaad ogaan doontaa qiimaha labada impulse ee soo socda meesha aadayaan saddexda impulse ee soo socda labada impulse ee soo socda meesha aadayaan labada kan dambe meesha aadayaan labada correction ee soo socda meesha aadi doonaan kuwa ka dambe meesha aadi doonaan suuqaba waxa si odorsi doontaa oo aad si predictable ku samayn doontaa si aad si saadaalin doontaa ilaa 500 600 bi meeshu aadi doono waa hadda waxa bartay qoriya intii koobneed ila soco aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh